Somaliland ayaa sheegtay in guddidii uu magacaabay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dib u heshiisiinta iyo wadahadallada Somaliland uu yahay gaf siyaasadeed oo loo geystay madax bannaanida Somaliland. war-saxaafadeed uu ku saxeexan yahay afhayeenka madaxtooyada Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac ayaa waxaa lagu sheegay in Somaliland ay Soomaaliya kula garnaqsan doonto fagaaro beesha caalamku ay goobjoog ka tahay. Somaliland ayaa soo jeedisay in dowladda Soomaaliya ay garwaaqsato in la kala yahay laba dal oo kala madax bannaan isla markaasina midoobay 1960kii. Somaliland ayaa ku eedeysay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya in ay Somaliland ku soo qaaday weerar siyaasadeed oo dhinaca dhaqaalaha bulshada iyo midda diblomaasiyadeed iyagoo meel kasta oo Somaliland ay ka hesho taageerada mashaariicda horumarineed sida maalgashiga marsada berbera iyo iibka xoolaha ay Somaliland Soomaaliya kaga tahay duulaan. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalintii shalay ahaa waxa uu magacaabay guddida dib u heshiisiinta iyo wadahadallada Somaliland. Cabdirashiid Cali Barre.